marwo aan iyadoo kale la arkin. Sida caadiga ah waxaan ku leeyahay waxaad tahay saxaabiyad. Dabcan waxaa si aad ah u jeceshahay inaa nabigaaga Muxamed sallallahu calayhi wasallam u raacdo safaradiisa, waayo waxaa og tahay la safrada nabiga sallallahu calayhi wasallam inay tahay raaxo. Daawashada wejigiisa quruxda badan ayaa ku iloobaysaa culayska safarka. Codkiisa macaanta badanna wuxuu ku ilowsiinayaa dhibka iyo rafaadka. Waa ku kana adiga oo la safrayo nabigaaga Muxamed sallallahu calayhi wasallam. Intaa safarka ahaydeen ayuu nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu marti ahaan ugu degay guri uu lahaa nin reer baadiye ah. Ninkii reer baadiyaha ahaa ayaa si aad ah u soo dhaweeyay nabiga, si wanaagsanna u marti qaaday. Nabiga sallallahu calayhi wasallamna waxaa dhaqan u ahaa inuusan iloobin wanaagga loo sameeyo. Ninkii reer baadiyaha ahaa ayuu ku yiri mar ina soo booqo. Nabigeena Muxamed ah, naxariista uu Rabbi nagu manaystayna ah, wuxuu rabaa in ninkaas reer baadiyaha ah uu abaalkiisa u gudo. Dhab ahaantiina waqti badan kama soo wareegin waxaa yimid ninkii reer baadiyaha ahaa. Nabiga sallallahu calayhi wasallam ayaa ku yiri markaas, i weydiiso waxa u baahan tahay. Wuxuu yiri waxaan u baahanahay hal aan korno iyo ri ay listaan reerkayga. Maadaama nabiga sallallahu calayhi wasallam uu aad u jeclaa waxyaabaha sare, ayuu yiri ma noqon weysay sida islaantii cajuusada ahayd ee reer bani Israa'iil. Sheeko jacaylkaaga waxaan ogahay inay isweydiinayso hadda, cajuusadaasi waxay ahayd. Saxaabaduna waxay ahaayeen adiga oo kale. Nabiga ayay weydiiyeen cajuusadaasi waxay ahayd. Nabiga sallallahu calayhi wasallam ayaa u sheegay markaas uu yiri, Nabi Yuusuf calayhi salaam ayaa qoomkiisa wuxuu u dardaarmay marka ay ka baxayaan Masar in ay meydkiisan horay u sii qaadaan oo ay ku aasaan Filistiin. Waxaa ka soo wareegatay sannado fara badan iyo qarniyo fara badan. Nabi Muuse calayhi salaam ayaa reer bani Israa'iil u sheegay markaas in la gaaray waqtigii ay ka tegi lahaayeen Masar. Waxay u sheegeen markaas dardaarankii Nabi Yuusuf calayhi salaam oo jiil walba uu dhexlayay. Wuxuu weydiiyey halka uu ku yaalo qabriga Yuusuf calayhi salaam si ay balmeedkiisa u qaadaan, dardaarankiisana u fuliyaan. Laakiin arrinka la yaabka leh ayaa wuxuu ahaa inaysan jirinba cid taqaanay qabrigaas halka uu ku yaalay, marka laga reebo islaan cajuuso ahayd oo arrinkaasi ka ogaatay awoowayaasheed. Nabi Muuse calayhi salaam ayaa ka dalbaday markaas inay u sheegto halka uu ku yaalo qabrigaas, balse way diiday. Waxayna ku shardisay inuu ka ballan qaado inay jannada saaxiib kula noqoto. Nabi Muuse calayhi salaam isagana arrinkaas ugu diiday, sababtoo ah jannada asaga ma bixiyo. Allah subxaanahu wa tacaala ayaa u waxyooday Nabi Muuse calayhi salaam inuu aqbalo waxay dalbatay islaantaas. Ugu dambaynna waxay tustay qabriga. Saxaabiyadda, haddii uu qof kuu sameeyo wanaag, ha iloobin wanaagga, mar walbana u diyaarsanow sida u gudi lahayd abaalkaas. Qaabkaas ayuu ahaa dhaqanka nabigaaga Muxamed sallallahu calayhi wasallam. Martiqaad yar oo u sameeyey nin reer baadiye ah ayuusan iloobin. Ninkii reer baadiyaha ahaa ayuu ka dalbaday inuu u yimaado isagana. Qofkii inkiro wanaagga qofna ma ixtiraamto. Nabiga sallallahu calayhi wasallam markii ay buriyeen reer Daa'if uuna rabay inuu u laabto magaalada Makka, ayaa wuxuu ogaaday in odayaasha Makka ay go'aamiyeen in loo diido magaalada. Nin la oran jiray Mudcim bin Cadiy ayuu ka dalbaday inuu siiyo magangeliyo. Mudcimna wuxuu ahaa nin caqli badan inkastoo uu gaal ahaa. Nabiga sallallahu calayhi wasallam ayuu geliyey magaalada Makka. Mudcim wuxuu dhintay isagoo aan loo gudin abaalkii uu ku lahaa nabigeena Muxamed. Laakiin dagaalkii Badar markuu dhammaaday, gaalo badanna la soo qabtay, ayuu nabiga sallallahu calayhi wasallam fiiriyey gaaladii, wuxuuna yiri, haddii Mudcim bin Cadiy iga dalban lahaa kuwan, waan u sii dayn lahaa. Saxaabiyadda, fiiri daacadnimada nabigaaga sallallahu calayhi wasallam. Dad u yimid dagaalkiisa, haddii ay jaanisku heli lahaayeenna dili lahaa, ayuu haddana diyaar u yahay inuu fasaxo. Haddii uu ka dalban lahaa
nin isaga wanaag u sameeyey. Saxaabiyadda, Rabbiga Nebi Muuse u waxyooday sooma awoodin in Nebi Muuse uu tuso qabriga Yuusuf, islaanta cajuusada ahaydna uu sidaas uga maarmo. Laakiin Rabbiga waa naxariis badane, wuxuu rabaa xitaa niyadda wanaagsan inuu ku bixiyo abaalmarin. Ujeedkaaga iyo niyadaada ka dhigo Allah, oo ka run sheeg waxaa raadinayso, isaguna waxaas wuxuu kugu siin doonaa qaabka ugu sahlan. Ma jirto cid ka deeqsinimo badan Allah. Nin reer baadiye ah oo aysan aqoon saxaabada ayaa yimid Nebiga sallallahu calayhi wasallam ayuu kula ballamay jihaad iyo hijro. Maalin ayaa wuxuu aaday dagaal, ciidankii muslimiinta ahaa ayaana soo guulaystay markaas. Nebiga sallallahu calayhi wasallam ayaa qaniimada wuxuu u qaybiyey saxaabada. Ninkii reer baadiyaha ahaana markaas waa uu maqnaa. Nebiga sallallahu calayhi wasallam ayaa u dhigay qaybtiisa. Markii uu yimid ayaa waxaa lagu yidhi, Nebiga sallallahu calayhi wasallam ayaa kuu dhigay intaan. Qaniimadii intuu soo qaaday ayuu u yimid Nebiga sallallahu calayhi wasallam, wuxuuna ku yidhi, maxay tahay rasuulkii Allow? Nebiga sallallahu calayhi wasallam ayaa ku yidhi, waa qaybtaada. Wuxuu yidhi, ma kugula ballamin midaan, ee waxaan kugula ballamay shahaado iyo janno. Nebiga sallallahu calayhi wasallam ayaa wuxuu dhahay markaas, haddaa run uga sheegto Alle waxa u baahan tahay, isaguna wuu ku rumayn doonaa waxaa rabto. Ninkii reer baadiyaha ahaa mar kale ayuu aaday dagaal, balse dib uma soo laaban isagoo nool, oo wuu shahiiday. Saxaabiyadda, si wanaagsan uga faa'iidayso fursadaha, oo ha noqon sida ninkii reer baadiyaha ahaa ee la siiyey fursadda qiimaha badan, balse dalbaday wax aan lahayn qiimo. Wixii aadan aqoonna dadka weydii, taasna ceeb ma ahan. Nebi Muuse calayhi salaam, isaga oo Rabbi la hadlo, ayuu haddana dadka wuxuu weydiinayaa halka uu ku yaalo qabriga Nebi Yuusuf calayhi salaam, waayo ma uusan aqoon. Ma jiro qof dhashay isagoo wax yaqaano. Arrimaha diinta weydiiya culimmada si aad Rabbiga ugu caabudo wax aad taqaano. Mar walba wax aqri, cilmi iyo aqoonna kororso. Aqoontu waa awoode. Mar walba wax aqri, cilmi iyo aqoonna kororso. Aqoontu waa awoode.